بسم الله الرحمن الرحيم. XL عشر كاني maanta wuxuu ku saabsan yahay insha Allah tacaala overrunda, sida overrunda loo sameeyo. Marka saddex qeybood oo overrunda lagu sameeyo ayaa jiro: overrunda needhod, overrunda uppåt. Saddexdaas ay u qeybsamaan. Tusaalayaashan ayaan meesha ku haysanaa. 1,101 iyo wixii lamid ah. Marka ugu horeysa waxaad leedahay halkaasaad ku dhufanaysaa. Waxaad leedahay adikame overrunda ku qoraysaa needhod, halkaas ku dhufanaysaa. Kadibna tool iyo decimal. Marka tool decimal waxaan leenahay 0, toolkan waxaan leenahay O2. Marka overrunda saa u taqaanin waxa waaye wixii 5 ka koreeya ayuunbaa la bedeli karaa, oo 2 la dhihi karaa ama 3 la dhihi karaa. Laakiin hadda halkan oo kaleeto wixii 5 ka hooseeyana overrunda lama sameeyo saa u taqaanin. Marka halkan overrunda needhod baan dhahnay O2. Marka waxaa noo soo baxay fiirinaynaa et baa soo baxay. Marka overrunda needhod et ayuu noqday. Overrunda ku soo hadlay waxaan leenahay adikame overrunda decimalkana sida 0, toolkana waa O2. Halkana waxaa noo soo baxay, halkana et baa noo soo baxay. Halkana overrunda uppåt. Waxaan leenahay adikame overrunda uppåt. Marka decimalka waxaan leenahay 0, toolkana waxaan leenahay O2. Kana waxa soo baxay, kana 2 soo baxay. Marka waa labadan saddexdan nooc ayuu kala baxay overrundaha: overrunda needhod, overrunda uppåt. Kan la isticmaalo badanaa waxa waaye overrunda, kaas waaye badanaa ka isticmaalaan meelaha shaqooyinka. Tusaale kale aan qaadanaynaa overrunda adikame overrunda needhod decimalka waxaan leenahay 0, toolka waxa waaye O3. et baa soo baxay. Kana kana adikame overrunda needhod, toolka waxaan leenahay 0, decimalka waa 0, toolkana waxa waaye O4. Marka tusaalahaas maanta kusoo qaadanay insha Allah tacaala. Aad baa mahadsantihiin. Overrunda wax adag maaha. Saddexdan way u qeybsamaa: overrunda needhod, overrunda uppåt. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.